بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي قالقة وإذن سلامي meel kastoo adduunka daafiisa aad ka joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo alaasanaad rutiin jadwalka galabta markay ilmaha seexdaan duurkii maxaan qaban rabaa ilaa habeenkii insha Allah marka intaana muuqaalka usii gudagelin waxaa idinka codsanayaa oo mar walibana idinka codsadaa muuqaalada inaad si fiican ugu fiirsataan subscribe siisaan like iyo share iyo comment waa xaggiina hadda waxaa jikada soo gala jikada dhan saan isku dhex daadsan tahay marka kala aruuriyo oo dhaqo alaabta waxa dhan qabta intuu saraba insha Allah saxanka lagu qadeeyo halkan saaran digsigii wixii oo dhan alaabta dhinacaas kale saaran tahay marka waxaa rabaa jikada inaan kala nadiifiyo kala aruuriyo inta ilmaha ay jiifaan waqti ka faa'iideysto hadda waxaa waa duurka markay seexdeen kadib qashinka baradhadii wixii aan isticmaalay halkaas iskaga guray bacda qashinka iskaga shubayaa kuukarka waa wasaq waa ujeedin waa nadiifinayaa asagana fridge sidoo kale marka jikada intaas ka qaban rabaa insha Allah inta ilmaha jiifaan waqti waxaa ka faa'iideysan karta ka faa'iideyso hooyo waxaa qaban karta qabo marka waxa aadan qaban karin hadda maba qaban kartid soo maaha marka fridge-ka alaabta dhan ka soo saaraya shaqada intaa ka bilaaba intaana marka hore wax kala waxaynin fridge marka wixii oo dhan ka saaray waan hagaajinayaa waan dhaqayaa waa ujeedin waa kaasaa waxbaa ku daadaatay cuntaa ku daadaadatay marka waa la nadiifinaa si fiican loo nadiifinaa insha Allah hadda marka fridge shaqadiisaan bilaabaa waxaa soo qaatay brushka oo ilkaha lagu cadaydo oo yaryarka ah marka waxaa u isticmaalaa ani weelasha iyo maxaan dhahay sida fridge oo kale iyo tarmuuska shaaha oo kale yaa u isticmaalaa marka meesha alaabta lagu dhaqo kama dheero meelahaas aa dhigtaa waxaan sameynayaa ujeedin meeshaas oo la gelinayo shabaqa fridge-ka oo waxbaa ku daadaata markaste marka saas uga soo saaraya gacanta ama istiraashada galiso waxaa laga yaabaa inuu kuusoo tirtirmi waayo ama kuusoo nadiifsamin marka ooma yar uu leeyahay asaa usoo dhexgeliy waa ku buraashaya ujeedina umaleynaya wasaqda dhan way kasoo baxbaxday meeshaasna waxaa waaye meesha biyaha oo saarayso oo loogu talagalay inay biyaha banaanka u saarto gadaal fridge-ka meesha matoorka biyaha ay ka baxaan oo weelka yarka saaran yahay fridge walba uu leeyahay sidaan u jeclahay suufka dhagaha soo qaata marka wixii qashin ku jirjira ka saaraya meeshaan oo kale hadday buuxsanto oo aanan ka saarin waxa yacni galgalo kale ama cunto ama wixii ku daadaato ama biyo cabitaan waxay noqonayaan biyaha dhan banaanka u soo saaraya hoos ka soo daadanayaan albaabka dhinaciisa ka soo daadanaya marka meesha dhan oo dhulka dhan oo qoyanaa arkay marka meeshaas sember wiigi ama labada wiig maraa maxay ahayd aan controla oo fiiriya inay maxay ahayd wax galeen iyo in kale marka sidaas sameeyaa brushka soo qaadana dhinacyadaas oo dhan waan marinayaa dhinacaas sidoo kale wax dhan waan nadiifinaa insha Allah markaa nadiifiyo soo soo baxa arki doontiin marka hadda waa soo nadiifiyay waan soo dhameeyay shabaqyada iyo wixii oo dhaq waa kaas dhinacana waa nadiif alaabtii wixii oo dhan waa nadiifiyay marka intaa ku guray ha u sii qalalo fridge-kana iska sii leersado xoogaa albaabka afure waanan damin rabay ma damin aan dhihi rabay macnaha laakiin albaabka xirsan uu sii furaha iska leersado marka hadda wuu leersaday kuwana biyuhu iga qalaleen waa kusoo ratibay waa kusoo hagaajiyay waa kusoo riday maa dhihi jiray waa kaasaa marka wixii igu jirjira kusoo aruursaday toonta iska soo badsadaa marka adeega liinaanka iyo basal iyo barbarooni aan isticmaalo jeexa iyo yogurtka iyo maxaa la tomaatoga iyo waxaan cambaha intii tiila inta soo gashtay inta kale waxaa waa ceeriin waa banaanka iska dhigay inta bisalaa banaanka soo yacni fridge soo gashtay marka caanayowga iyo wixii aan kusoo habeeyey dhinacana waa tirtiray rootigaas waxaa waaye wuu naga soo haray marka meeshiisuu yaalaa xagga waxaa ku jira xawa bijiye kuukarka waa nadiifi waa kaasaa shaahi waa kaasaa xaguu saaran yahay waa kana jikada qaybta kore oo dhan waa nadiif maasha Allah dhinaca alaabtana waa kaasaa waa nadiifiyey marka hadda waa soo baxay waxaa sameynayaa dharaa soo dhaqay yacni dhar awal aan dhaqay oo ii qalalay ayaan soo aruursaday dharkii aan laalaabayaa meesha fadhiga kusii diyaarinaya marka ilmaha soo kacaan xareynaa insha Allah haddana waxaa waaye bajiyaan ilmaha usii sameynaya oo bilaa basbaas
oo bilaa lelefow marka lelefow waa ka daaya galabte sidiisay ku cunayaan maadaama cambo uu yahay dhanaan uu yahay markasta calool xanuun ay ka qaadi karaan. Marka waa kaasa bajiyaha iyo shaah cadays isku cabaayaan. Hadda bajiyahaan dubayaa markaa bajiyaha dhameeyo kadib insha Allah oo soo kackaceen bajiyahooda siiyey iyo shaah iyo caano iskugu daray siriyahooda intaas waaye marka cashaday kusii suganayaan inta cashada la gaarin biyo cabitaan iyo waxaan siinayaa waa kaasa maadaama ay qadada si fiican u cuneen waqti dhowna ay qadada ay ii cuneen marka waa kaa shaahina waa kanaya caanihii hadda marka cashada bilaabaya insha Allah salaada maqrib markaa soo tukado kadib waxaa sameyn rabaa baasto iyo suugo la isku dhex walaaqaya sameynaya insha Allah la isku dhex karinayo jikinkii iyo wixii aan ku dari lahaa xawaajiyaal inta kusoo shubtay xawaaji dhowdhow kamid ah huruuda kamid ah barbarooni shiidan ee gaduudan kamid ah toon kabsar toon basasha cadiris ku daro ujeedin toon buda iyo toon oo kala oo yacni qoyan aan kusoo daray marka jikinkana 3 adaa soo qaatay waa ku riday maraq digaagii wax u dhiman malahan yogurt shiishida ka dhiman dabka iska saaraya iska bislaado hadda waxa waaye markii la casheeyay kadib oo aan casheynay waxaan soo qaatay tirtire markaa waxaan dhihi rabay intaan la casheynin waaye marka cashada aan diyaariyey laakiin waa kaasa cashadii qolalkaas soo tirtirayay waa habeenimo waaye marka maqribka waa la dhaafay qashiina waa la tukaday cashadii waa diyaariyey waa kaasa waa 2 saac habeenimo waaye marka qolalkiina waa iska soo tirtiray qolka carruurta qolka jiifka soo tirtiray musqusha soo nadiifiyey fadhiga bas ay harsanaa fadhigana markii lagu casheeyo ugu dambeyn waxaa waaye waqti waa u waayey markaa saas darteed waa iska daayay hadda ilmaha cashada siinayaa anigana waa la casheynayaa marka waa kaasa baastada usoo kura baastada waxaa waaye yoogada ku daray yoogad plain yoogada isticmaalay marka hadda waa soo casheynay cabitaankiina waa kana waxaa waaye cambo waaye always anaga camba iska shiidanaa hadda markaa soo casheynay waxaa waaye alaabta iska dhaqaa iska nadiifinayaa saxankii baaquligii galaasyadii wixii oo dhan inta adiga weelashii waxaa waaye oo cuntada la helayd intana way ii harta baastada waxaan sameynaa fridge ka gashanayaa kuukarka waa kana hadaay waa la nadiifiyay haddana waxaa waaye shaqo kale lagu qabsaday haddana waa la nadiifinayaa markaa jikada nadiifa ka seexanaya insha Allah meesha alaabta ku dhaq waa kana waa nadiif alaabtina waa soo dhaqday alaabtina waa dhaq waa kaasa jikada qaybtiis dhan nadiif waaye hadda marka dhulka tirtiraa qolalka waa soo tirtiray marka fadhiga bas ii hare fadhiga insha Allah subaxii haddii Ilaahay idmo ayaan hagaajinayaa marka dhulkana waa kaasa waa wasakh ku daadaatay marka waxaa sameynayaa jikada dhan aan tirtiray waa soo nadiifiyey waan qalajiyey balakoonka sidoo kale qashinka xiran waa iska aruuriyey bacda qashinka ku guray marka waa taanka ugu dambeeyo aan seexanayo baybiga caano yar siisanaya salaada cishaa tukanaya baambiska ilmaha kala bedelayo wixii baambis loo xiraayo hawsha saasay ku dhamaatay jikada waa nadiif u jeediin waa kaasa jikadii oo nadiif ah halkaas rootiga ii saaran iyo caanaha jalmadaasna waxbaa ku haray intaas kaliya waa jikada wax kale wasakh ma jiraan marka maasha Allah tabarakallah hooyo waxaa qaban kartida la iska qabtaa ilmaha markay ka jiifaan iyo markii ay meelaha ciyaarayaan mashquulsan yihiin waxaa ka faa'iideysan kartaa laga faa'iideystaa marka hadda jikada leerka waa ka damiyey qolka ilmaha soo aaday marka waxaa waaye baybiga yariiska ah baambiska ka bedelaya gabadhana baambiskeeda waa u xiray sariirooda ku kala ridayaa hadda marka waxaa magaalada waa la kala aruuray waa habeen wanaagsan waa la seexday marka asxaabteeda qaaliga muuqaalka intaan ayuu ku egyahay waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan ilaahay nabad iyo caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash iyo baraare iyo nabad ha noogu bariyo insha Allah dambigeena dambi waalidkeena Allah dhaafo cimri dheer cibaado suuban caafimaad taaman Allah na siiyo waxaan rajeynayaa muuqaalka inta haddaa soo gaarto waa ku mahadsantahay haddaad soo gaarin soo gaaraa ku leeyahay insha Allah ay muuqaalka ila dhameyso halkaasuu ku egyahay jadwalkeenii marka waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan waqtiga idin wacnaado وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته